xilligaasi meesha waxaa ku sugnaa nin lagu magacaabi jiray Barker oo isku ekaysiinaya nin mas-uula, laakiin xaqiiqdu tahay inuu yahay tiwi xirfadle ah. waxaana layna tusayaa isagoo isku dayay inuu bangiga gudaha u galo si uu uga dhaca lacag. keligiis ma shaqaynayo ee waxaa caawinaya saaxiibadiis, kuwaas oo ka kooban 4 qof. mid waxa uu isku ekaysiiya askari waardiye ah, midna waxa uu iska dhigaa ninka dadka haga, halka labada kalena ay xidheen dharka dabaaldega xafladaasi. intaas kadib Barker waxa uu doonayaa inuu gudaha u galo bangigaasi isagoo iska dhigaya mid lacag dhiganaya, balse saaxiibadiis ayaa markiiba weeraraya waardiyaha bangigaasi, iyagoo kuwa kalena ay urursanayaan lacagta taala bangigaasi. waxayna ku guulaysanayaan inay bursooyinka ku ritaan dhammaan lacagaha bangigaasi. dhanka kale waxaanu aragnaa mid ka mid a saaxiibada Barker oo gubaya caws ku dhowaa meeshaasi si uu dadka ugu jeediyo dabkaasi, balse dabka ayaa qabsanaya haamaha gaaska, taas oo gebi ahaanba gubaysa goobtaasi. Barker iyo asxaabtiisa ayaa si degdeg uga baxaya goobtaasi, iyagoo sii raacaya ninkii saaxiibkooda ahaa ee iska ekaysiinayay waardiyaha. waxaanay aadayaan geerash si ay gaadhiga ugu bedeshaan, waxaanay qaateen baabuur kale oo ay hore usii diyaarsadeen. intii ay sii socdeen ayaa mid ka mid a asxaabta oo lagu magacaabi jiray Murder waxa uu keenayaa fikir ah in lacagta ay ku bedeshaan dahab, laakiinse Barker ayaa diidaya fikirkani isagoo doonaya in lacagta lagu qaybsado si siman, balse Murder iyo asxaabtiisa kale ayaa kasoo horjeedsanaya fikirka Barker. waxaanay markiiba ku fikirayaan inay la dagaalamaan isaga, waxaana isku dagaalayaan gudaha gaadhigaas. intaasi kadib Barker ayay toogteen kana tuureen gaadhiga, waxaana isku dayeen inay u dhammeeyaan, laakiinse dhaawac halis ayaa gaadhay, waxaanay moodayeen inuu dhintay.